بسم الله الرحمن الرحيم. شيكada labiyo labaatanaad الجراد والرجل والضيف. jiir nin iyo marti. jiir ayaa yiri gurigii ugu horeeyay ee aan yeeshay wuxuu ahaan jiray magaalo lagu magacaabi jiray Maaruut. wuxuuna ahaa guri nin aan caruur lahayn uu isna dhan kaga nool yahay. wuxuuna habeen walba la iman jiray dambiil ama sallad cunto ah. marka uu ka casheeyo ayuu baaqiga soo hadha meel suran jiray. waanan u soo dhuuman jiray oo u soo dhukusi jiray ilaa ma aan gaaro oo aan ka dhargo baaqigana aan u daadiyo jiirarka kale ee guriga dhan kaga nool. ninkii wuxuu ku dadaalay inuu sallada meel aanan gaarin geeyo, laakiin meel kasta oo uu geeyo waan gaaray oo waa ugu tegay. iyadoo ninkii si uu yeelo garan la yahay ayaa habeenada kamida waxa u yimid nin marti ah. markii ay casheeyeen ayay bilaabeen inay sheekaystaan. ninkii loo martiga ahaa ayaa ku yiri ninkii martiga ahaa dhulkee u dhalatay, xageese iminka ku socota. wuxuuna ahaa ninka martiga ahi nin meelo badan soo maray oo waxyaabo badan oo lala yaabo ku soo arkay. markaasuu bilaabay inuu uga sheekeeyo wadamadu maray iyo wuxuu ku arkay. wuxuu marar sameeyay ninkii sacab tumid uu doonayo inuu igaga eriyo sallada aniga. markaasuu ninkii sheekadii joojiyay oo xanaaqay oo yiri waan kuu sheekaynayaa oo aad adiguna igu ciyaaraysaa. maxaa kugu kalifay oo aad wax ii su'aalaysaa haddii aad sidaa u dhaqmayso? ninkii ayaa bilaabay inuu u cudur daarto oo wuxuu ku yiri sheekadaada ma aan qoonsan oo ma diidin ee waxaan sacabka ku eriyayaa jiir guriga ku jira oo wixii aan meel dhigtaba cuna wuu i dhibay kaasi. ninkii martiga ahaa ayaa yiri ma jiir keligii ahbaa mise waa jiirar fara badan? ninkii ayaa yiri jiirka guriga ku nooli waa badan yahay, laakiin mid ka mida iyaga ayaa nafta ii keenay oo i daashaday, waanan u waayay xeelad aan iskaga cisho. ninkii martiga ahaa ayaa yiri haa waxbaa dabada ka wada ii keen faash si aan ugu qodo godkiisa oo u soo ogaado arrinta dabada ka wada iyo xaaladiisu waxa ay tahay. ninkii ayaa faashkii u keenay martigii. waxaase godkayga yiil 100 diinaar oo aanan garanayn cidda keentay. waxaan ahaan jiray mid goglada oo ku farxa lacagtaas oo ku labalnagdooda kuna tababarta. ninkii martiga ahaa waa qoday godkii ilaa uu gaaray lacagtii oo la soo baxay. wuxuuna yiri ma ahayn jiirkani mid xoog badan ee wuxuu xoogga iyo firfircoonida ka heli jiray lacagtan. maxaa yeelay xooluhu waxay sameeyaan xoog iyo aragti badnaan. waadna ogaan oo maanta kadib ku arki maysid wuxuu samayn jiray kama duwanaan doono jiirarka kale. waan ogaaday oo run buu sheegay. waxaan naftaydii ku arkay liidnimo, dhinaan iyo niyad jab markii lacagtii laga saaray godkaygii. waanan ka guuray godkii oo waxaan u wareegay god kale. markii ay biri noqotay ayaa jiirkii isugu ka yimid waxayna igu yiraahdeen wargaajaan haysa oo waa weynay wixii aadna siin jirtay ee arrintayada eeg oo hanaga dayn wixii aad nagu sadaqadaysan jirtay. waan tegey oo waxaan bilaabay inaan meeshii aan sallada kaga boodi jiray tago. waxaana isku dayay marar badan inaan ku boodo, balse waan awoodi waayay inaan gaadho. waxaa ii caddaatay in arrintaydii isbeddeshay. jiirkiina waa iga tegey oo waxaan maqlay iyagoo ku sheekaysanaya warkan waa u dhammaatay, wakhtigaa dilay, inaga keena, hana doonina wax agtiisa ma yaallaani. waa aragnaa oo xoog ma hayo mana samayn karo wuxuu samayn jiray. waxaanba u malaynaynaa inuu wax caawiya doonayo. wuu fakhriyaye inaga mariya. waa iga tageen kuwan wax tari jiray oo waxay ku biireen cadawgeygii iyo kuwii awalba xaasidka ii ahaan jiray. agtaydii way ka guureen waxayna bilaabeen inaanay ii soo dhowaan oo xaggaygaba soo eegin. waxaan naftayda ku idhi ma aragtaa oo kuwii kuu nacamlayn jiray walaalaha iyo ehelkuba waxay ahaayeen kuwo xoolaha kugula jiray, ma ahayn qosolka, sharafta iyo isjacaylka xoolahaad haysato mooyee wax kale. waxaan ogaaday ciddii aan xoolo haysani haddii ay doonto inay arrin samayso inaanay samayn karayn oo ay iska fadhiid noqoto sida biyaha iska fadhiya togaga ee ka ahaaday ama ka yimid roob xagaa, kuwaasoo aan biyaha badda gaadhin kuwa biyadana gaadhin ee iska fadhiya meel. maxaa wacay wax wada ma laha. waxaan ahaa mid arkayay martigu markuu lacagta gurayay oo godka kala soo baxayay oo ay qaybsanayeen isaga iyo ninkii guriga lahaa. isagu wuxuu qaybtiisii ku ritay kiishad oo wuxuu dhigay madaxiisa agtiisa. waxaan goostay inaan